waa sheekadii gabadhii saboolnimada ku kortay ee guusha gaartay. Tuulo yar ayaa waxaa ku noolayd gabar lagu magacaabi jiray Sahra. Nolosheedu ma ahayn mid sahlan. Aabaheed wuxuu geeriyooday iyadoo yar, hooyadeedna waxa ay ahayd haweeney xanuunsan oo aan shaqay karin. Mararka qaar xitaa cuntada hal maalin ayay waayi jireen. Marka ay gabdhaha da'deeda ahi iskuul tegayaan, Sahra waxay suuqa ku iibin jirtay biyo iyo nacnac yar si ay qoyskeeda uga caawiso nolol maalmeedka. Dad badan ayaa ku qosli jiray, waxay dhihi jireen, maxay gabadhan faqiirka ahi noqon kartaa, ayay oran jireen. Laakiin Sahra mar walba waxay qalbigeeda ku haysan jirtay hal oraah oo ah, qofka maanta la liido berri ayaa laga yaabaa inuu noqdo kan loo baahdo. Inkasta oo uu dhib badan haystay, haddana marna ma quusan. Maalin kasta waxay hurdada ka kacdaa iyadoo riyo weyn leh. Waxay rabtay inay maalin noqoto qof dadka wax u qabta. Maalin maalmaha ka mid ah ayay la kulantay wiil la oran jiray Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan ma ahayn nin maalqabeyn ah, laakiin wuxuu ahaa qof qalbi wanaagsan. Wuxuu arkay dadaalka Sahro. Wuxuu yidhi, saboolnimadu ceeb maaha, ceebtuna waa inaad isdhiibto. Hadalladaas waxay bedeleen qalbiga Sahra. Markii dadka kale ay niyad jebiyeen, Cabdiraxmaan ayaa dhiirin gelin jiray. Marka ay oyso, isaga ayaa xasuusin jiray hadafkeeda. Markii ay quusan rabto, isaga ayaa ku oran jiray, dhib kasta oo maanta ku haysta berri wuxuu noqon doonaa sheeko aad ku faanto. Sahra waxay bilowday inay habeenkii wax barato iyadoo shumac yar shidata. Maalintii way shaqaysanaysay, habeenkiina way baranaysay. Sanado badan ayay sidaas ku waday. Markii ay xaaladdu soo yara hagaagtay, ayaa hooyadeed xanuun daran ku dhacay. Lacag ma jirin, qaraabo badan ayaa ku jeesjeestay. Dadkii ay filaysay inay garab istaagayaan way ka tageen. Waxay dareentay inay keligeed tahay. Laakiin Cabdiraxmaan ayaa ku yidhi, marka albaab xirmo, Ilaahay wuxuu furaa albaabo kale. Sahra ma quusan, way shaqaysay maalin iyo habeen. Waxay qabatay shaqo kasta oo xalaal ah. Waxay iibisay alaabo, waxay dadka u qabatay adeego yaryar. Waxay urursatay lacagtii hooyadeed lagu daaweyn lahaa. Maalintaas ayay fahantay xigmad weyn oo ah, qofka dhibaatada ka carara weligiis ma arko awoodda ku qarsoon naftiisa. Hooyadeedna way caafimaaday oo way bogsatay. Laakiin Sahra weli safarkeedu ma dhammaan. Maalin ayaa shirkad weyn shaqaale cusub raadinaysay. Kumanaan qof ayaa codsatay. Dadku waxay ku yiraahdeen, adiga fursad kuma lihid. Laakiin Sahra waxay xasuusatay oraah kale oo ahayd, adoon guuldarraysan ha aqbalin in laga adkaaday. Waxay gashay imtixaankii. Waxay samaysay dadaal ka badan qof kasta. Maalmo kadib waxaa soo baxay natiijadii. Magaca ugu horreeyay wuxuu ahaa Sahra. Markii ay aragtay magaceeda, ilmadu indhaheeda ayay ka soo qubatay. Waxay xasuusatay maalmihii gaajada. Waxay xasuusatay habeenadii shumaca. Waxay xasuusatay hadalladii dadka ku qoslayay. Laakiin maanta waxay ahayd maalintii ay sugaysay. Shaqadii cusbayd waxay ku muujisay karti iyo dadaal. Muddo yar gudaheed waxay noqotay qofka ugu waxqabadka badan shirkadda. Dhowr sano kadib waxay furatay ganacsi u gaar ah. Ganacsigaas si weyn ayuu u kobcay. Dadkii hore ugu qosli jiray ayaa hadda talo weydiisanaya. Dadkii dhayalsan jiray ayaa hadda ku faana. Laakiin Sahra isma bedelin. Waxay mar walba xasuusnayd halkii ay ka soo bilowday. Waxay dadka saboolka ah ka caawin jirtay waxbarashada. Waxay shaqo siin jirtay dhalinyarada. Waxay ahayd qof guusha la wadaagta dadka kale. Maalin ayay istaagtay goob kumanaan qof joogaan. Waxa la weydiiyey, maxay tahay sirta guusha? Sahra ayaa dhoola cadaysay. Waxayna tiri, guushu ma aha inaad marna aadan dhicin. Guushu waa inaad kacdo mar kasta oo aad dhacdo. Dabadeed waxay raacisay, waxaan lahaa laba hanti oo kaliya, taasoo ahayd aaminka qadarka iyo saaxiib aan iga quusan markii aan anigu naftayda ka quustay. Markaas ayay indhaheedu raadiyeen Cabdiraxmaan oo safka hore fadhiyay. Iyadoo dadka oo dhan eegayaan ayay tiri, haddii uu qof iga dambeeyo maanta oo uu dareemayo inuu hooseeyo, waxaan leeyahay bilowgaaga ha ka xishoon. Geedka ugu dheer wuxuu ka soo baxaa abuur yar. Dadkii oo dhan ayaa sacab la istaagay. Sahra waxay ka soo safartay saboolnimo, gaajo iyo quus ilaa heerkii ugu sarreeyay ee guusha. Waxayna caddaysay xigmaddii oranaysay, dhibaatadu ma aha dhammaadka sheekadaada, ee mararka qaar waa bilowga guushaada.